galabta intii gelinkii dambe xalay magaalada Washington oo waxa ka hadlay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh markii uu hadlay saddex qodob Soomaaliland gaar buu la hadlay Soomaaliland wuxuu yiri marka koobaad Soomaaliland waxa uu sheegay inaanaan ogolaan doonina Soomaaliland madax bannaan oo goonisu taagta bareed waa dhageysan doontaa wuxuu yiri حتى إلا كوبي سجاشة كإرجع ورهلا إسرائيل يبدأ لقى معرموية ما أقولين وواحد قال قرينا وحكستو سود وين هي سومالي لاند هنا حر قتل جون استاكتو وانو كده قال لنا أخبار ما ينكرقو حد كي إنجليزك يطلعان قلنا قايمين مايان وحكب بدن بينو ذاكنا وحكومة الرقابة كاستحاد وانو أقوله وحلي حين نرشوا ذا أما لما الجرينا أما بايع مفترى أما دولة سيريا أنا قال الله يسوع مريو وأنا سنة حيوان سيريا سأي سجن ولا هذا وأنا قصدي نقطة أن قلب كوبات أرجع سومالات أقولان ما يحرية ديد مدح بناني ديد يلا نقشة الجبنة دي وحنكره هرت la soo noqoshada Soomaaliland gobonnimadeeda iyo xornimadeeda iyo qarannimadeeda iyo madax bannaanideeda ee ahaa xorriyadda ay ka qaadatay Ingiriiska 26 Juun oo Afrika oo dhan ay kala simantay dal kasta oo jira iyo midowgii ay la midowday Soomaaliland Soomaaliyadii Talyaaniga Juulaay 1960 labaduba wuxuu ahaa go'aan ay u madax bannaan yihiin iyo tala ay soo gooyeen Soomaaliland shacabkoodu hadba madaxda joogtaan ay wakiil ka ahayd cidina labada go'aan ma khuseeyo oo wax kama bedeli karaan oo kuma dirqi karaan kama qaban karaan kuma riixi karaan oo aan ahayn go'aanka Soomaaliland sidaa darteed idinkuna hor fadhiyo oo iniga weynayo inay joogtay bale qaranka Soomaaliland magaalada Burcaan caawa joogo oo intiina aad ka wada marxaati ahaydeen oo la isugu yimid wuxuu go'aansaday inuu ka baxo midowgii ku khasaaray markii ay burburtay waxaanu ku heshiinay uu qarannimada gaar isula taago iyadoo la isu dhayahay taana Xasan Sheekh iyo xamarni jooga iyo mid Islaanda jooga iyo mid meel kale jooga waxba laga weydiin maayo 30 sano qaran madax bannaan baynu ahayn hadalka aad tiri cadaawada uu kordhinaya aqli xumana way tahay 30 sano kala maqnaynay waxa ka wanaagsanaa inaad tiraahdo ku leenahay laba dawladood jaaro walaalo Soomaaliya ma ahaana haddii ku deeqayso weeye adiga ta oranaysa qodobka uu yiri xadadkii Talyaaniga iyo Ingiriisku sameeyaan in kala soocimaaya oo in kala gooymayo wax weyn naga dhaxay waxaan kale ama aynu kaleenahay horta xadkii isticmaalku waa ka ku dhisan tahay Afrika 4 iyo 50 dawladood Soomaaliland waa 5 nin diida iyo ratiisiyaba waayo waxay ku fadhidaa xadkii isticmaalka Xasan Sheekh iyo madaxweynaha xamar waxay ka mid yihiin oo ay fadhiistaan shirka midowga Afrika xeerkeedu wuxuu ku dhisan yahay xadigeedu inay Afrika ku dhisnaato xuduudihii isticmaalka waa laba wajiilanimo iyo munaafaqnimo dadka aad u sheegayso inaad dhex fadhiisato oo ku dhaqanto xeerka midowga Afrika ee leh Afrika waxay ku dhaqmaysaa xeerarkii xadadkii isticmaalka tagay isla markaana aad leedahay Soomaaliya Somaliland ku kala raaci maayaan xadka Talyaaniga Ingiriiska oo maxaa ka reebaya haddaad diidan tahay axadiga midowga Afrika deeska bax Afrika midowga Afrika وهذا متقارن سوا سوا احترام ومدوري حدودي صافي لكن Somaliland ما أورن كرتي كما قال سبكر وشرعي أفريقيا رموي على مدو أفريقيا كم دي هاي كويدين بينه حرية ديادو واحد كل سوى التاج أفريقيا تكدولة أفريقيين كشريك كونترات بالله ننتي دينا نسيتين ده قلب كصدحات وحيري وحنقولها إن إسكع عيشه وإذا هرمرين أصير إني وهدي نقالة وبهيين وأنا صحيحية ده هرمر دوريان
waanu saxiixayaa ma doonayna inaanu culays ku saarno muruqayaga siyaasadeed ee dowladnimo ta hore waxaan diyaar uma nihin inaan muruqayga ku isticmaala siyaasadda diblomaasiyadda xorriyadeed waxaan ka leeyahay haddaad muruq leedahay siyaasadeed xor tahay maxay ku ilaaliyaan nimanka afrikaanka ah ee afrika soo urursay ee lagu siiyay waxaan la yaabanahay inaad faantood tiraahdo Soomaaliland xornimada muruqayga ku isticmaali maayo adoo Burundi iyo Uganda ku ilaaliyaan cashuurtaadana ay shabaab ka qaada adiga daaraha iyo macaamiisha taa waan u ogolaanayaa wixii ay ku noolaanayaan iyo iska ceesheen waxaan ka leeyahay horta Soomaalidu hore uma mahmaday waxay tiri Soomaalidu waxay tiraahdaa gob xurmaad deeqda guna gasiin iyo goos qabatin baa deeqa waxay la taxaasay shakhsi Soomaaliland deeqan markuu leeyahay iska noolaadan labada ere wuxuu quurayaa kadama Soomaaliland Soomaalidu way taqaana adiga shakhsiyan ku sheegaya Soomaaliland soo baro Soomaaliland waa gob xurmaad deeqda ee calooshu ma deeqda waxay galayaan iyo goosay gudbi haddii xornimo iyo ixtiraam iyo qarannimo laga waayana nin wali wuxuu yahay in buu noqon waxaan ku soo koobayaa habeenkii 26 Juun markii Hargeysa xafladii la joogay arintaa waan ka hadlay wuuna soo hambaliyay waxa loo dareemayay inuu si maaragtay nin af wanaagsan waa kan aad arko macaaneeye saaxiibo badan oo ku leeyahay Soomaaliland qaar baa mashtarkiisa ka socda iskuul leeyahay in badan buu ku noolaa walaalayaal af macaan baraysan anigu habeenka waxa leeyahay waar libaaxa ka qaylaya ka soociya iyo ka amsan badan waxa soo baxday Xasan Sheekh wuxuu la aamusaa inuu shalay ka sheegay Farjiria isagoo la hadlaya qurba joogii Soomaaliya waxaan ku talinayaa laba dawladood oo 30 sano kala madax banaan xoreen اعتراف إلهي ولا اعتراف أنا واسع اعتراف سنة بني آدم يروح ونقول بهنا يربع صدوا سنة وكلام مغنى لا بيصدوا سنة صدوا سنة شب إيه عراد إيه إلى الدنيا وتشوفه صدوا سنة كل حرة هديك دقيق ويدي أنا وقرر ما يوحى كدقيق يكون تراميه لكن الشعب كالصومالي وحلاه أنا وحلو هذا الصومال لندهي ولا ليال كلا قوسنا يقوم ما أنو لما دولة ولا لا إنه هذين واحترينه هذين استعشرينه لكن وها حسن كسويري مرها شعبي الصومالي الله ما سعدان سليه وحي وحجردي أنت سوي دور يوحي عنك أولا لها أو سليه هاي برع أولا وأصلا Soomaaliland أنت وياشوا بدنا وحي كدورنا ويشوجا فقرك وين كولا لها ما تشرو هذه أدوم هتسنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته